sheekadeenii oo xalayto ee ku saabsanaa Turkida iyo waxay rabaan inay Soomaaliya ka sameeyaan baan meesha ka sii wadaynaa marka xalayto waxaan maraynay Turkida iyo waxay dalkeena ka soo dooneen iyo waxay rabaan inay la qabtaan okay inta hor Turkida aanan aadin waxaan example u soo qaadanaynaa maanta aan joogno sanadkan 2026 bishii shanaad aan ku jirno aan dhahno Soomaaliya 35 sano burbursaneed waxa nabad haystay oo nabadgelyo haystay waxay ahaayeen Puntland iyo Somaliland maanta haddii labadaas maamul dhaqaalooda isku darto hal county oo Kenya waa hal county oo hal county oo Kenya baa ka lacag badan waa hal county hatta ma aan gobol dhan hal county oo Kenya ka lacag badan sababtaas maxaa waaye Somaliland iyo Puntland oodoo ay Soomaaliya ka tirsanaayeen nabadgelyo ay haysteen waxa ku dhacay waxa Soomaaliya ku dhacay Soomaaliya halkaas lagu dhagnaa bangi inuu deyn ku siiyo ma ogoleen grants waxa la dhaho oo wadamada Kenya iyo Uganda ay qaataan in lagu siiyo ma ogoleen so Somaliland iyo Puntland waxa oo maanta county Kenya ku yaalo oo lacag badan yahay waxa sabab u ah in ma garanaysa dawladda Soomaaliya dhinacyada lagu dhagan yahay oo loo ogoleen inuu Soomaaliya dhaqaalaheeda hal habeen oo kor u kaco example waxa uu soo qaadanaa habeen hore madaxweyne Xasan Sheekh Ahmed wuxuu dhahay Mareykanka tagay waxaan ku dhuudhahay waa 2012 markaas isaga la doortay 1314 kii tagay markii Obama uu madaxweyne ahaa waxaan ku dhuudhahay niyo madaxweyne Obama ma naga qaadaan cunaqabateynta iyo dhibaatada aan ugu heysaan oo barnaamijka la dhaho Swift inaan ka qayb galaan rabnaa waxaan ugu dhuudhahay niyo wadankaas system kama jiro dawlad kama jirto wax ka jira ma jiro haddii aad system standard keensanaysaan oo aad rabtaan inaad Mareykanka iyo adduunka la shaqaysataan system standard la imaada si asaga madaxweynaha ahaa madaxweyne kale Mareykan saa ku dhahay soo hadda 10 years kadib Trump wuxuu dhahaa Soomaali dawlad kama jirto Soomaali waa meel u dhamaatay Soomaali waa qashin waxaas wax Trump kali u aaminsan yahay maaha cadaanka Mareykanka aaminsan because cadaanka Mareykanka CNN daawdaan wixii liberal wixii oo conservative ama republican ka midigtana waxay daawdaan Fox News Soomaaliya kaliya maxaa laga tusay Black Hawk Down oo filimkii waagi ciidii laga sameeyay oo Amerikaanka sida loo jiiday iyo Captain Phillips oo piracy ahaa labadaas filim bas ah Amerikaanka laga tusay wixii kale waxa waaye baaldiya la soo sawiraa Soomaaliya gaajo waxa kaliya la tusay dadka Amerikaanka waaba Soomaali oo gaajo u dhamaanayso oo loo magaranaysa Fox News iyo CNN laga soo daayo wax kale oo wanaag oo Soomaali laga tusay jirto okay taariikh oo real oo ariga ugu dhacdaan ii sheegaya hadda ka hor baan waxaan tagay shir madaxweynaha Mareykanka ka hadlay madaxweynaha Mareykanka maadaama uu ka hadlayay I think waxa joogeen madaxweynaha Rwanda oo markaas magaranaysa shirka asagana hadal ku lahaa iyo dad kale oo madax saariga Minnesota ahaan baa waxaan isku raacnay group 5 qof ilaa 10 qof ah nin cadaana nala socdo marka oo Soomaalida sida bahdilka iyo wax dadka Amerikaanka ay ka aaminsan yihiin baan sheegay inay Soomaalida horta adduunkaba oo wax kale naga aaminsan dad qof iyo qaaci inay Soomaaliya nolol ka jirin inay lagu baabacay dadka Amerikaanka information kala siiwa intaas lagu qoodiyaa information kala laba dhinac bas ay ka helaan baa Hollywood CNN iyo Fox News okay ninka cadaanka ahaa nin aan aad saaxiib u nahay Soomaalida la shaqeysto fiican Soomaalida jecel bas aniga waxaan ku dhahay oo ma sha Allah shirkiyaan joognay madaxweynaha Mareykanka hadlay madaxweynaha Rwanda hadlay markaas ilaa markaas waxaan iska yiri I wish inuu madaxweynaha Soomaaliya joogi lahaa ninkii tusoo bodo kala dad baan ka hadlaynay maxaa waxaan gelisay madaxweynaha Soomaaliya maxaa meesha sida loo keenay kula Soomaaliya dawlad ma ka jirtay marka Trump waxaan uu iska dhahayo wax oo outside ka soo maqlama waa wax Amerikaanka ay aaminsan yihiin inay Soomaaliya cawaan yihiin dawlad ka jirin dad baabacay yihiin dad anaga marka Soomaali American hadaan nahay frontiga joognaa oo waa inaan waxas difaacnaa aan dhahnaa anaad sawir hal sawir magaca Soomaali soo geliyo ajnabiga badan ay ugu jiro waxay dhaan wow Soomaaliya meesha miya because dadka Amerikaanka waa dad sida meel ku xiran oo information ka helaan laba dhinac bas ka helaan ninka waxa ku iri warniyahow ma garanaysaa
aad baan kaaga xumaadaan inaa hadalkaas dhahday Soomaaliya dad baan ka hadlayna maxaa dhaanay madaxweynaha Soomaaliya waa wadan United Nations ay sit ku leeyihiin madaxweynaha Mareykanka United Nations sidii ku leeyihiin Soomaaliya waa aan leedahay Mareykanka camal leedahay madaxweynaha Mareykanka White House way nagu soo dhaweyn jireen aan dhahay magaraysa wasaarihii hore Soomaaliya madaxweynihii hore Soomaaliya White House ka lagu soo dhaweyn jiray maxaa ku hadlaysaa ninkii maalinkii ilaa hadda ani asaga xoogaa taag buu xiriirkeena noqday sababtoo ah ay confronti maxaan ku dhahniyo dowladda dulmiga dhahay Soomaaliya waa wadan dawlad ku jirto xogaha ma garanaysaa Mareykanka civil war iyo dhibaatay soo mareen annaga dib waan soo marnay laakiin inaa ma garanaysaa aasaa ila hadasho aniga aad baa uga xumaadaan dhahay kadib wuu raali geliyey wuxuu ugu dhahay niyahow waxaas waa aniga waxaa maqlay waana jeclaan lahaa inaan Soomaaliya soo fiiriyo ma garanaysaa aad baa aniga asaga ninkii uu xiriirkeena u xumaaday marka maxaa loo baahay marka Soomaalida saas baa loo dulmiyey inay ayaga marka waxaa la rabaa ay noqdaan maadaama hadda Somaliland Israa'iil ay keentay example kale aan soo qaadana 1945 miya bay Israa'iil marka saa loo sameeyay Israa'iil bay ayagiisa iyo Turkida xiriir yeesheen si hoos ay kala shaqaysanayaan anna maxaa loo baahan yahay Somaliland ma shakaasa keentay Israa'iil baa ku umaadaha kaal bal soo dhawow what can we do Israa'iil xataa waxba ma garanaysaa laga yaabaa in laga faa'iiday maxaa la qabsan karnaa Somaliland in loo yeero oo Israa'iil ku aqoonsatay aan lagu sii fogeynin even that loo isticmaalo opportunity maadaama adiga dal aad tahay dal walba ee dan ka soo gasho waa inaad ma garanaysaa la fadhiistaa dhahdaa hoy what can we do ani Soomaaliya ahay maxay sameyn kartaa adiga wadankaas tahay maxaa samaysan karnaa laakiin hadaa dhahdid wax walba Soomaalida extreme u sameeyaan oo hal mar qaraxna loo keenay waaba dhaafna dadka isqarxin jiray meel walba 700 hal mar iska dileena waxaana loo keenay ma garanaysaa qabiilkii Ingiriiskii iyo balaayadii gumeystiin uu soo dhaxtuuray waa aragtaa u isticmaaleen wax walba Soomaalida gees inay uga tagaan ay jecel yihiin annaga maxaa u baahanahay laakiin wax walba fiiri wax walba quraankeena noo sheegay wax walba inaan moderate ka isticmaasho hadda maanta ordo waa soo xisaabtama inta ordo nasato biicabto baa loogu talagalay hadda maanta wax macaan isku daldasho cunto waa sakraadaysa haddii aad maanta biyo iska dharjiso wax walba moderation loogu talagalay anaga Soomaaliya hadaan marka haddii laba qof heshiin weyso kana gees ka istaaga kana gees ku istaaga waa inay wax walba qofka uu danta guud ka fiiriyo mar walba oo tanaasulka uu bato si dadka ay u gaaraan society-ga bulshada ay u gaaraan horumar barwaaqo because extreme ka wax walba laga sameeynayo waxay noo keenaysaa midda 35 sano dhaxalsiisay inaan gaajo corruption wax walba adduunka wuxuu example loogu soo qaato